بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقعي هو عبد الكريم حسين اللي انت بدل وحن كذا الله أرمها بالشدة. الحمد لله ثم الحمد لله إلى ما هذا إله سبحانه وتعالى بالشان بركة سن موسنك الوجرة إنه وافتشي إلهي النص يديو نبعنا كجرة وح حملية ودرية بشها بركة سن ومدى مسلمين وصل شيء أنت حنوسنا في إلهي عاف ما تماسيه waxaan bisha barkaysan ka faa'iideysan waxa weeyaan inaga bisha moosinka ku jirno in umada waxaan fariinta u faray waxa weeyaan inay ka faa'iideystaan bisha waa bil qaaliya waa bisha kaliya ilaahay hadiidaha bixiyo hadiida ugu weyn waa hadiida jannada iyo ilaahay raalahaashiisa inta waxaan ku daray waxa weeyaan waa codsi labada aan u darayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siiraye taasoo ka codsano in bulshadii ay iyadoo bishii barakeysan ku jiro ay soo gashay oo saxir barna jiro iyadoo abaarihii laga degan yahay laakiin abaara xagga hoose oo saxir bararka ayaa jira saxir bararka iyo doolarka maciishada ka axsan madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in shay kasta maanta uu ku qiimeysay doolar shayga kor loo qaado doolar maadaama doolarkii laga maarmay in lacagteeni wadaninimo aan cidna tixgelin in lacagteeni aynu haysano noo dalabto lacagta wadanka kaliya Afrikaana ee dalbadaha noqon lacag kale aan lahayn qalaade maadaama aan lacagtan dadkii ummadii isfaansiyo doolarkaas maciishadeen noqotay salaajliga waxaan ka codsanaynaa in lacagta noo dalabto dalabka lacagta doolarka hadeen waxba laga bedeli karin saxir barkan leeyahay doolarkii baa ka xasiyo doolarkii baa hoos dhacsan lacagtaas aanu qaadano aan isticmaalna inta wadaniyadu imanayso lacagteena inta ilaahay naafaasiin doon intaasaan fariin madaxweynaha ka diraya bulshadeena waxaan u sheegayaa in ummaddu waa ummadeeni in ganacsatada waxaan u sheegayaa iyo bulshada in balasayraan inta dabal codsiga madaxweynuhu ka soo jawaabi doono doorka maanta aad iyo aad u kacsan qiimaha maciishadii dadka masaakiinta kaashka wataa meel la kama dhacay laakiin qofka hadii dibadda wax laga soo diro doolar sito kaas baa maanta wax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.